Arsenal oo laga diiday dalabkii ay ka gudbisay Gyökeres waxay diyaarisay mid kale oo aad u sareeya. Kooxda Arsenal ayaa la sheegayaa inay diyaarinayso dalab horumarsan oo ay ku doonayso saxiixa weeraryahanka Sporting CP ee Victor Gyökeres xilli ay Manchester United sidoo kale la timid dalab waali ah sida ay warinayaan warbaahinta dalka Portugal. Horaantii toddobaadkan, agaasimaha ciyaaraha ee Arsenal Andre Barta ayaa la kulmay dhigiisa Sporting CP Bernardo Palmeiro si ay uga wada hadlaan heshiis ku saabsan weeraryahanka reer Sweden. Si kastaba, Sporting ayaa iska diiday dalabkii hore ee Arsenal ee ahaa 55 milyan iyo 10 milyan oo ah gunooyin ku xiran waxqabadka ciyaaryahanka. Inkasta oo Sporting aysan ku adkaysanin bixinta qodobka burburinta qandaraaska ee ahaa 100 milyan, haddana waxay doonayaan inay helaan lacag ku dhow 80 milyan oo euro. Sida laga soo xigtay warbaahinada wax ka qora arrimaha suuqa, Arsenal ayaa hadda diyaar u ah inay soo bandhigto dalab cusub oo gaaraya 70 milyan oo euro oo ay ku jiraan gunooyin. Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in Sporting ay diyaar u tahay inay gasho wareeg kale oo wadahadalo ah oo ay la yeelato Arsenal, iyadoo la dareemayo rajo sii kordhaysa oo ka jirta kooxda Gyökeres oo rumaysan in heshiis la gaari karo. Dhinaca kalena, Man United oo ku biirtay tartanka saxiixa Hugo Ekitike, iyadoo Liverpool iyo Chelsea ay weli xiiseynayaan, sida uu sheegay suxufiga caanka ah ee Florian Plettenberg oo ka tirsan Sky Germany. Kooxda Manchester United ayaa si rasmi ah ugu biirtay tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike. Warbixinta ayaa sheegaysa in United ay la xiriirtay wakiilka xiddiga reer France 48 saac ee lasoo dhaafay. Dhanka kale, kooxaha Liverpool iyo Chelsea ayaa weli muujinaya xiisahooda ku aadan 22 jirkan, inkasta oo aysan weli gudbin wax dalab rasmi ah. Eintracht Frankfurt ayaa la rumaysan yahay inay ku qiimeynayso Ekitike 100 milyan oo euro kadib xil ciyaareed uu si cajiib ah u dhaliyay 22 gool dhammaan tartamada uu ka qayb galay. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena caawa ee bandhiga ciyaaraha. Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.